ووحلو فرحه إن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسين تلا دراسيين فالوحلقة قرطي القرآن كنا دوا إلهي كلمة دي سيسيد ودوغنا هاي سومالو دوابي ورا آخر سكيسي كفي عنايد إن يربع تقاني معنيس إن يرى علماء قوضي أيما تقاني عصر عند بعد مدين وصاب ضنا أيوه إن وحلقة فهمه رقم كيسا لكن كسي مهم سن ووحلو آخرنا إياه إلو فهم إياه وإنه هرقل الله نقمه وإنه قرنه الدنيا آخرة بينه ينفعه إما ذا المسكحدين وكبو حيث آخرين لغو بباديه لكن waxaa laga yaabaa shubahaadka laynagu akhriyay daraaddeed inay su-aalo badani ka taagayiin talow adduunka ma lagu liibaanayaa waa laga yaabaa inaan afka su-aashaa laga odhan laakiin dee dhaqankeena sheegaya mar haddii aynan wixii hidaayaadkii ilaahayna siiyey oo qur-aankani hidaayaad buu wadaa hidaayaadkaasi waa هداية ربانية من الله سبحانه وتعالى كيمي وهدايات ميسرة فضوضة واضحة وهدايات عامة وشاملة والدين نولا الشردن مالك استايتا هيدا بوشا وهدايات تمامية كمال له وأن زيادة باهنين وهداية باهنين اللي قدامه لكن مسلم كضعف عصر عندما كنا عيبا وحو dhaqankiisu sheegaya afkaba yuu ka odhane inaan kalsoonidu badnayn talo haddii lagu dhaqmo maxaa soo bixi lahaa badhkeen rumaysan yihiin malaa dowladnimada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xaggaa ma gaadho qur-aanku qaarkeen rumaysan yihiin aanun in laga barakaysto lagu cibaadaysta weeyaan arrimahaasi waa arrimay ragga iyo caqligooda loogu talagalay wax badan oo khuraafa ah oo kale inuu aaminsan oo ku dhinac badnaa haddaba haddaa barateen oo daraasayseen waxaan filayaa sheekh maxamed in badan inuu idiin soo gudbiyey nusuusta qur-aanka ee tiro badan ee sheegaysa diintani inay dhaqan u guurto ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala kuwii ku dhaqma inuu inaga yeelo marka dhammaanteen caalamulislaami oo dhan kuwii ku dhaqma in alla inaga yeelo subxaanahu watacaala sheekh maxamedna ilaahay ka abaalmariyo dee sheekh maxamed aadanna waa isaga ducaynaynaa inkasta uu dhac yahay oo dee gobol uu soo dhacay haddana kollayba de mar haddii laga faa'idaystay oo u ducaynayna oo isagana waxay leenahay ilaahay khayra siiyo waxaan si aada ugu farxay sheekha ardayga ahaayee yidhi aniguna dilaalkiisaan ka qayb galayoo aad baanu dee waa rag badan oo halka fadhiyaa soo dilaalay ilaahay isna dilaalnimadaa u kordhiyo ilaan diintu raggii hore saasunbay ugu kaceen casharatu lmubashiriinka maqashaan inta ugu badan le nebiga waxa uu keenay abibakar baa soo dilaalay haddaynu ereygaa isticmaalno yani intooda ugu badan waxa keenay abibakar idan في ميزان أبي بكر في آخرة كصاح حاضرية ده مع أبي بكر ميزان كالنبي قال والله يمنيا لكن ده أبي بكر بهرجع عشرة المبشرين كان له بشارية دين تكاني وهي أنا مركان رجل نقدين إسلام لماذا تن دهير جريء وحد كجارين إلى هي بشارية يقول دوني ده كرشوجا ونبي محمد كويلا عليه الصلاة والسلام جنات جلسان marka waxa la inay waayeelka kalena dee dilaalnimada caawa laydin sheegaya yaydan dhinac marin sheekh maxamedna ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad ha siiyo diintana ha ku sugo khayrkaa uu wadana ilaahay subxaanahu watacaala dadka si fiican ha u anfaco ardadii ka baratayna waxaan leenahay ilaahay ha idinku anfaco aqoontuna kororsiga ayay wax ku noqotaa dhigistana way ku sugantaa haddaad dhigi weydaan idinka idinku qaadaysaa waa engegaysaa
geedku soo biyaha kuma koro aqoontuna zakadeedu waa bixintan bay ku badataa intuu qofku bixinayo markaad daris dhigaysana intaad adigu faa'iidaysaa waxaa ka badan tahay inta ardaygu kaa faa'iidayo waayo waxaa laga yaabaa kitaabada tiro badan ee la sheegayay sheekh maxamed inaan waqti u helaan uu soo wada akhriyo haddaydan idinku sugaynin markuu ogyahay inay idinku sugaysaan ayuu xilkaa isa saaray inuu isna marka intuu isagu faa'iida ka badan intuu idin sheegay saa awgeed waxaan leeyahay raggii wax bartay war idinkuna haddaa sii gudbisaan aqoontu way idiin barakoobaysaa way idiin bararaysaa dee caawana waa xaflad waxaynu isugu nimo wacdi badani ma jireen idinkana allah idinku barakeeyo sheekhana allah ku barakeeyo dhammaanteenna allah inugu anfaco sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland